inay xamar dowladda joogtaa la midaysato iyadu soo furtay waxaa u daliila maanta golisa shacabku intuu fadhiistay ayuu guddi u soo saaray arrinta somalilan taasi waxay markhaati ka tahay in dowladda xamar ka dhisan maanta ay ka bareedhay in somalilan ay weerar ku qaado wax ku kordhaya waxaad istaawilisayba diyaar baan una shantiina madaxweynaha ku jira xamar haddaad tidhahda somalilan weerar maanta waa ka qaadi karnaa waa isfurannahay diyaarna waan unahay shacbiga somalilandna taasaynu u sheegayna in maanta shacbiga xamar intuu golo fadhiistay u dhahdo somalilan guddigii tallaabo ka qaadaya xal leed baan u dareena waxaad ka hesheen baa leed baan leh waxaa hadlay madax dhaqameedyo badan oo kismaayo jooga oo qardho jooga oo meelo kaloo badanna jooga waa inoo kow soomaali dhaqankeeda intaasoo madax dhaqameed oo dagaal ku wada bixinaysay waxay yidhaahdeen dadkii la laayey ee 40 aan soo sheegay 100 ka dhigeen somaliland baa laysay odayaashaas gartaan may qaadin xogagaal may ahayn arrintaa kamay gu gaarin waxay ku xukumeen inay fidno ka dhex abuuraan somaliland dadkaa wada degan waana arrin uguba waxaan aada ugu mahadnaqaya oo waayeelnimo ku taliyey oo sidii madax dhaqameed lagu yaqaanay u taliyey suldaanka la yidhahdo suldaan cabdiraxmaan duulaa rabay ninkaas waa taliyey sidii nin islaami u garqaadi jiray buu qaaday war colkaa la joojiyo nabadaha la doono buuri saadiinta iyo nimanka gurmudka dawladda ka daayay dab hashidine waa tii aabihiina ku halgami jiray waxaan ku taliyey oonu aada ugu bogaadinaynaa nabad iyo ninka qaldar inuu joojiyo waana inta looga baahayay dadka somalilan dowladaha etoobiya iyo kenya ee qaybaha bulshadooda ka mid ah af soomaaliya ku hadlaa ay ku soo faragelinayaan dagaalka u ogayaan somalilan oo kow ka yahay baarlamentarianka faarax macalin waxaan leedahay deris wanaagsan baanu idin haynaa nabad iskaashi bay labaa dowlad ku wada joognaa nabadiin baanu haynaa bal arrintan cusub ee shacabka af soomaaliya ku hadla qayb ka mid ah ay ka soo baxdayna dee waxaanu ka doonayna inaan ka war doontaa see u dhacday waa dowladda kenya iyo etoobiya iyagana waxaanu ka warsugaynaa oo dareen nagu jira in aanu danay ereygaa keligii ku ahayn iyo somalilan ee uu garab ka haysta dowladda xamar dareenkaana waa qabnaa iyagana waxaanu leedahay war jiraaba cakaano iman warkiinaan sugayna waxaan ku soo gabagabaynaya daanu somalilandna oo 30 sano dowlad ahayd maanta intii isu soo urursanaysa la colaba soomaalida qarankeyga difaac bay ugu furan yihiin ninkii naga maarmi waayow waynu suranna shacbiga somalilan ayaan ku soo koobayaa ugu dambayntii oo ah maanta somaliland ma kala lahaa mucaarad iyo muxaafid qarannimada heegan baa loo wadayay 3 xisbi qaran oo wakhtigoodii ka dhammaaday iyo 10 ururo iminka siyaasadda u halgamaya dhammaantood maanta waxaanu ka midaysanahay in qarannimada la daafaco waayo intaasi waxay u tartamayaan inay dalka maamulkiisa qabtaan markaa dalka maamulkiisa la qabtay waa la soo weerar kama shaki qabo inay dhammaantood u wada hegan yihiin difaaca dalka iyo somaliland qurbo joogiisa ka wax tabanaya iyo ka dalka jooga somaliland maanta way u mudaysan tahay cadaawadda iyo weerarkaa deni iclaamiyey iyo cidda garab ku siinaysa inaan dalka ay ka daafacaan saasaanu qarnimadooda diyaar nahay kaanu ka soo baxan u yahay mashkaladda laascaanoodna somaliland oo dhan baa isugu tegaysa